waxaynu socda qorshaha ahaa yani ganacsi online inaad bilowdid sanadkan oo boorka iska jiftid insha allah hadduu mid hore kugu jirayna inaad sii hormarisid insha allah haddii ilaah yiraahdo muuqaalkan waxaan ku dul istaagi doonaa ilaahay idinkii sida loo garto targetka gaarka ah ama niche yani sidee qayb khaas ah oo suuqa ka mid ah aad diiradda u saari lahayd si ganacsigaada ugu guuleysto arrintan marka si guud bay faa'iido ugu tahay qof kasta oo rabo business inuu bilaabo maaha online kaliya gaar kuma aha maaragtay business kasta oo la bilaabayo qofku wuxuu u baahan yahay inuu aado area specific ah oo ka ganacsado dadka qaybtood marka aysan suuqa fahansaneyn qofku waxaa laga yaabaa inay ka dhadhacsan tahay inuu wax walba gado inay faa'iido badan tahay maadaama wax walba gadayso qofkii ku yimaado waxba kaa waayi maayo saas u fakarayaa qofku laakiin runtii taas khasaara ayay kugu tahay qofku inuusan wax walba kaa waayin waxay ka dhigan tahay in wax adiga lagu garanayo aysan jirin oo businesskaadu businessyada kale kaga duwan businessyada nature-kooda u samaysan yahay inay wax walba hayaan waa jiraan laakiin adiga kaas hadda investment waxa laga yaabaa inaadan u hayn $1,000 ama malaayiin dollar inaadan u hayn karin ayay u badantay sidaa darteed waxaad u baahan tahay marka koowaad niche inaad aadid in fact niche-kaas aad aaday ama qaybta gaarka ah ee businesska aad diiradda aad saaraysa waxay laftirkeeda ka samayn kartaa boqolaal ama kumanaan ama malaayiin ka samayn kartaa laftirkeeda kama dhigno inaysan yani faa'iido badnayn in fact marka qaybtooda ka faa'iido badan tahay sababtoo ah businessyada successfulka dhan aada ugu waaweyn adduunka waa business iyo waxyaabo gaar ah diiradda saara marka niche-ka waxaa loola jeedaa suuqa intaa la eg inaadan iska dhex boodin oo cid walba wax ka gadin waayo marketing costiga ayaa aada kugu badanaya xitaa marka wax kalaba laga tago qarashka suuqgeynta ayaa lacag aada u badan kaa gelaysa sidaa darteed waxaad u baahan tahay suuqa markaa gelaysa in aad qayb gaara diiradda saartida qaybtaa ku jirto haddii aad videoga hore soo daabatay marka stepkan waxay noqonaysaa fikrad markaa soo heshay stepka labaad yani fikrad haddaa haysatid fikradda stepka labaad oo kugu xiga waxa weeye inaad cid gaara ama group gaara aad focus ka saartid marka xigmadda conceptigu waxa weeye fikraddan markaan soo aruurino waxaad u baahan tahay inaad group ama shakhsiyaad yani macaamiishaadu inay kuu cad yihiin problemka xalinaysin inuu cad yahay ayaa la rabaa wax walba ma xallin karta problemka xalinaysin inuu cad yahay tusaale ahaan waxaa caawin kartaa kasoo qaad business baa furatay online ah ama online marketing ah waxaa caawin kartaa dadka mashquulka ah baa waxaa ka caawin kartaa marketing wax la garan karo qofkaas waxaa u furan marketing dadka ka caawiya suuqeynta ka caawiya kasoo qaad waxaan caawiyaa giftiyadaasa laga soo dalbadaa waxaan productyada noocaasa laga soo dalbadaa waxaan deliver garayn karaa xaafadahan deliver garayn karaa ama geyn karaa soo macaamiisha dadka hadiyadaha rabo dadkeena u diraan ama wadalka dibadiisa jooga ama gudaha jooga yaa adeegan iga soo dalbanaya kadibna waxaa la dhahayaa xaafad heblageey ama meel heblageey ama qof heblageey sidaas marka inuu cadiyaa baa la rabaa maxaa la dhahdaa sidoo kale waxaad see ku ogaan kartaa waxyaabaha trendska ama dadku ay rabaan ama aada u gataan waxyaabaha aad kala socon karto waxaa kamid a inaad ka fiirisid Google Trending waxa loo yaqaano waxaad kaloo ka eegi kartaa waxa loo yaqaano Facebook gruubyada dadku waxay soo share gareynayaan TikTok iyo si caadi ah marketka xitaa inaad u qiimeysid bal dadku maxay jecel yihiin maxay daneynayaan maxay rabaan taana marka waad ku soo ogaan kartaa marka targetkan labaad qodobkan labaad waxa weeye businesskaada si uu guuleysto waxaa u baahan tahay inaad focus ka saartid target specific ama cid khaas ah arrintaa marka hadda waxa laga yaabaa markaan kuu sheegay inaysan wax significant weyn kugu fadhin ayaan filayaa laakiin marka aad businesska life u dhex gashid oo lacag badan kaa khasaarto oo darbiyada madaxa ku dhufato markaa waa fahmi doontaa yani arrintan muhiimadda ay leedahay iyo inay kuu save garayn karto $10,000 oo runtii lacag ah inay kuu save garayn karto